wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa si rasmi ah dowladda Soomaaliya u gudbisay cabasho ka dhan ah maamulka Puntland. Cabashadaas oo ah in Puntland ay si dadban uga qayb qaadanayso dagaalka sokeeye ee ka socda Suudaan. Warqad rasmi ah oo loo diray dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in ilo xog ogaal ah oo maxalli ah iyo kuwo caalami ah ay muujinayaan inay Puntland taageero istiraatiiji iyo mid saadka ah siinayso ciidamada RSF oo ah maleeshiyaad si weyn loogu eedeeyay tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo dembiyo dagaal oo ka dhacay gudaha Suudaan. Warqadda waxaa lagu sheegay in garoonka diyaaradaha ee Boosaaso uu noqday xarun isugu jirto safarro iyo sahay ciidan oo ay isticmaalaan ciidamada RSF, iyadoo la tuhunsan yahay in taageeradaasi ay ka soo jeedo dalal shisheeye oo ay ku jirto Imaaraadka Carabta. Sidoo kale dowladda Suudaan waxa ay muujisay dareen culus oo ku aadan hadal uu jeediyay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo si buuxda u beeniyay in Puntland wax xiriir ah la leedahay xiisadda Suudaan. Suudaan waxay sheegtay in hadalkaasi uu yahay marin habaabin iyo isku day lagu daboolayo kaalinta Puntland ee la xiriirta taageerada RSF. Wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan waxay sidoo kale tilmaantay in wasiir Maxamuud Caydiid uu haysto dhalashada Biriishka, taasoo keentay in safaaradda Suudaan ee London ay si rasmi ah ula xiriirto dowladda UK si ay uga hadasho saameynta hadalladiisa. Inkastoo Suudaan ay sheegtay in ay la leedahay xiriir walaaltinimo iyo diblomaasiyadeed oo wanaagsan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalk Soomaaliya, haddana waxay si cad u sheegtay in taageerada Puntland u fidinayso RSF loo arko khatar weyn oo liddi ku ah amniga qaranka Suudaan, isla markaana dhaawici doonta xiriirka labada dal. Suudaan waxa ay si adag u sheegtay inaysan aqbali doonin RSF amaba hoggaankooda ay helaan taageero siyaasadeed, ciidan amaba saadka ah, iyadoo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin dilka kumanaan qof oo rayid ah iyo xasilooni darro baahsan oo gobolka Suudaan ka kacday. Ugu dambeyn, dowladda Suudaan waxay ka codsatay dowladda federaalk Soomaaliya in si degdeg ah u baarto arrintan, tallaabo sax ahna ka qaado, isla markaana ay mar kale caddeyso mowqifkeeda ku aadan ilaalinta madax-bannaanida Suudaan iyo nabadda gobolka.